inta badan dowladaha xubnaha ka ah midowga Afrika ayaa ku boorinaya qaramada midoobay inay gacan ka geysato xoojinta dalladda nabad ilaalinta ee Soomaaliya iyadoo midowga Afrika uu ka tusaale qaadanayo qabsashadii Taliban ee Afghanistan. sargaal sare oo ka tirsan midowga Afrika ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay si weyn ugu tiirsan tahay ciidamada Afrikaanka ah ee AMISOM. waxaan ugu baaqayaa qaramada midoobay waxaan ugu baaqayaa dhammaan la hawlgalayaasha in ay sii wadaan taageerida Soomaaliya iyaga oo si fiican u garanaya xaaladda Afghanistan, ayuu yidhi gudoomiyaha arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo amniga ee midowga Afrika oo jimcihii warbaahinta la hadlay. midowga Afrika ayaa doonaya in hawlgalka AMISOM la kordhiyo ilaa 2027 qaramada midoobeyna ay bixiso taageero dheeri ah sida uu mar kale sheegay madaxa siyaasadda midowga Afrika. mas-uulkan waxa uu sheegay inuu rajaynayo dhammaadka Oktoobar inay dib ugu laabanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ka dalbanayaan taageero dheeri ah. arrintan ayaa timid kadib markii ay Taliban la wareegeen gacan ku haynta Afghanistan, taasi oo timid kadib markii ay ciidamada Mareykanku isaga baxeen kadib 20 sano oo ay gacanta ku hayeen. arrintaasi oo inta badan siyaasiyiintu ku macnaayeen guuldarro siyaasadeed, taasi oo keentay in markii dambe ay si degdeg ah kulan uga yeeshaan wasiirada arrimaha dibadda ee dhammaan dalalka Yurub, kuwaasi oo ku baaqay in la sameeyo ciidan Yurub u gaar ah, maadaama oo ay sheegeen inaan lagu sii kalsoonaan karin hogaaminta dhinaca militariga ee Mareykanka. iminkana gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Suleymaan Maxamuud Aadan oo maanta gudoominayay kalfadhigii 76aad ee golahaasi ayaa soo hadal qaaday doorashooyinkii isku sidkana ee dhawaan ka dhacay Somaliland. gudoomiyaha ayaa shaaca ka qaaday xilli uu ka hor hadlayay golaha guurtida in laga badiyay xisbiga talada haya ee kulmiye, isla markaana gudoonka golaha wakiilada Somaliland ay la wareegeen xisbiyada mucaaradka ee kala ah Wadani iyo Ucid sida uu hadalka u dhigay. doorashadii surgudoonka golaha wakiilada ee saddexda ahaa saddexdiiba mucaaradkaas ku teeday. adduunka tiray isku biirsadeen qoladii mucaaradka ahaydoo wixiiba iyagaa wada qaatay. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in guusha mucaaradku ay ku timid kadib markii ay iskaashi sameeyeen labada xisbi, sidaasina ay ku heleen kuraasta ugu badan iyo shirgudoonka. gudoomiyaha golaha guurta ee Somaliland ayaa sidoo kale arrintan la yaab ku tilmaamay iyo wax aan ka dhicin adduunka intiisa kale. adduunka dhaqankeedu sidaa maaha. kolihii waxaan leeyahay xisbigii xisbi xaakimka ahaa oo aan laga wada badnayn, haddii qodob mid dheeraatayba kuwa kale aada uga yaryihiin bana wax buu helay, xisbi xaakimkiina waxba ma helin. adduunka dee kama dhacdo, laakiin sidoodayn ugu daynin. intaasi kadib waxaa buuq sameeyey qaar ka mid a xubnaha golahaasi oo si weyn uga soo horjeestay hadalka gudoomiyaha ee ka dhanka ah xisbiyada mucaaradka. walow markii dambe lagu guuleystay in la qaboojiyo xiisadda, kulankaasina uu si habsamiya u sii socdo. si kastaba ha ahaatee, doorashadii dhawaan ka dhacday Somaliland waxaa guulo waaweyn ka soo hooyay xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid, iyada oo sidoo kalena la wareegay shirgudoonka golaha wakiilada iyo tirada ugu badan ee inta badan maayirada dalka. hadalhaynta kiiska la xidhiidha Igraan Tahliil Faarax ayaa meel xasaasiya maraya, taasi oo inta badan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliya si weyn uga hadleen. Yuusuf Garaad oo ah ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ka hadlay dilka Igraan Tahliil Faarax oo nisa ay shaacisay inay dileen xogaga Al-Shabaab. Yuusuf Garaad oo horey u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu codkiisa ku biirinayo baaritaan dhab ah oo lagu sameeyo dilka Igraan Tahliil si looga gun gaadho xaqiiqada jirta, sidoo kalena ay cadaalad u helaan waalidiinteedu.
waxaan codkayga ku beerinayaa in baadhitaan lagu kalsoon yahay lagu sameeyo Ikraan Tahliil Faarax oo la yidhi waa la dilay. baadhitaanka ujeedadiisu waa in lagu gaadho xaqiiqo wadata caddaynteeda oo lagu kalsoonaan karo si Ikraan iyo waalidiinteeda ay u helaan cadaalad loona dhayo dhaawaca gaadhay kalsoonida shacabka, ayuu yidhi Yuusuf Garaad Cumar. sidoo kale wuxuu ku baaqay in kiiska Ikraan aan loo waxyeelaynin dad shacab ah isla markaana aan geysanin wax dembiya. waxaan ku baaqayaa sidoo kale in dhacdadan murugada leh awgeed aan waxyeelo loo geysanin dad Soomaaliyeed oo aan wax dembi ah galabsanin kuna lug lahayn kiiska Ikraan, ayuu raaciyay hadalkiisa. ugu dambeyntii ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa tacsi tiiraanyada u diray waalidiinta iyo dhammaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax. tan iyo markii ay hay'adda NISA shaacisay in Ikraan Tahliil oo lagu leeyahay nolol iyo geeri ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna la dilay, ayaa waxaa isa soo tarayay baaqyada soo baxaya ee lagu dalbanayo in baadhitaan dhab ah lagu sameeyo dhacdadan si cadaaladda loo waafajiyo. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa kiiska Ikraan Tahliil uga hadlay si ka duwan sidii uu maalmihii ugu dambeeyey uga hadlayay kadib markii hay'adda nabad sugidda ee NISA shaacisay geerideeda. xildhibaan Jeesow oo markii hore difaacaya hay'adda NISA ayaa sheegay in hadda la joogo waqtigii Ikraan ay heli lahayd cadaalad lana caddayn lahaa cidda dishay maadaama la xaqiijiyay geerideeda. warqadii NISA ka soo baxday bulshadu way ku qanci weyday, aniga iyo qoyskeeduna kumaanu qancin. 66 maalmood oo aan NISA ka sugaynay waxay noqotay shabaab ayaa dishay, ayuu yidhi xildhibaan Jeesow. Jeesow ayaa tilmaamay in aysan ku qancin warka ka soo baxay NISA, wuxuuna sheegay inaysan ilaa iyo hadda garanayn cidda kiiskan gacanta ku haysa. kuma qancayno shabaab ayaa dishay, shabaab way soo hadleen, iyagii ayaa qaadan waayey in la yidhaahdo shabaab ayaa dishay, ayuu hadalkiisa ku yidhi xildhibaan Jeesow. xildhibaanka ayaa sheegay in arrinta ay ka tabanayaan hay'adda nabad sugidda ee NISA aysan ahayn wax ay ka baryayaan, waxaanu ugu baaqay in ay u soo hadlaan si ka duwan sida ay dhowaan sheegeen. wuxuu sheegay in kiiska Ikraan loo saaray ilaa 2 guddi, balse wuxuu tilmaamay in hay'adda NISA ay ka hor dhacday baadhitaanka socday. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayuu ugu baaqay in ay guddi cusub u magacaabaan kiiskan si loo helo baadhitaan madax bannaan oo caddeeya cidda mas'uulka ka ah dilka Ikraan Tahliil. ugu dambeyntii xildhibaan Jeesow ayaa ku baaqay in dadka lagu qafaashay magaalada Beledweyne la sii daayo, isaga oo dhinaca kalena eedeyn u soo jeediyey siyaasiyiinta doonaya inay siyaasadeeyaan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la kiciyo dadka shicibka ah. dhinaca kale waxaa socda dadaalo lagu doonayo in lagu sii daayo 3daasi dhalinyarada ah ee shalay lagu afduubay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaa ka socda dadaalo lagu doonayo in lagu sii daayo 3 dhalinyaro ah oo shalay galinkii dambe lagu afduubay xaafadda Hawlwadaag. afduubka dhalinyarada ayaa la xidhiidha kiiska Ikraan Tahliil oo ka tirsanay sirdoonka Soomaaliya oo dowladdu sheegtay in Al-Shabaab ay dileen, balse shabaabku ay iska diideen in ay ku lug leeyihiin dilka gabadhaasi. dadka afduubka geystay ayaa ay isku hayb yihiin Ikraan Tahliil, halka kuwa afduubka loo geystay ay isku hayb yihiin agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Suldaan Aadan Cusmaan Caalim oo ka mid ah odayaasha ku howlan sii deynta raggaasi ayaa ka hadlay halka ay wax marayaan. wiilasha 3 oo la afduubay waa sax 4 bishii 9 2021 afduubka dhacay. horta marka ilaa iyo wadi markii ka dhacay ilaa haddana kolba waa u fadhinaa, welina hadda warka fakiran oo naga soo baxay hadda aan idin siin kara malaha. suldaan, dadkan maxaa loo afduubtay? dadkaas waxaa afduubay dhalinyaro qabanayo dil iyo afduub isugu daray gabar Ikraan Tahliil Faarax la yiraahdo oo la afduubay ahalkeedii dhalinyaro ah afduubay nimanka afduubay gabadha la afduubtay hadda geeri iyo nolol mid aan lagu haynin. walaalaheed iyo aabaheed iyo ahalkeedii intay degan yihiin nimanka lagu tugnaa badalkoodana in ay degan yihiin. marka haddii aan hadda wax cad la helin oo nasibid la kala saarin isdhirin waa jirtaa isdhirin maayin. markana magaalada Jowhar oo xalay fiidkii lagu dhaawacay 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxaa la soo warinayaa in xaaladda caafimaad ee xildhibaanadaasi ay haatan degan tahay, iyada oo weerarka lagu qaadayna loo adeegsaday bom gacmeed lagu tuuray guriga ay magaaladaasi ka deganaayeen. ciidamada ammaanka ayaa durbadiiba lagu soo daadiyey magaalada, waxaanay ka wadaan baadhitaano arrintaasi la xidhiidha, walow ilaa hadda aanay jirin cid weerarkaasi loo soo qabtay. weerarkan ayaa imanaya xilli magaaladaasi lagu wado in dhowaan lagu qabto
doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee ku matali doona maamul goboleedka Hirshabelle. Haddaba xildhibaan Maxamuud Wabar Xasan oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi طبعا حلو هذا عي بمبا أي لغطور جوري أي تجناي حلوانا صدق أو كم ده حلوانا هيرشبيلة أي جنا هذا حركة ودعوة منه وسكال كجوهرين يلان فعن رجينا إن شاء الله إلهنا وبرينا نعرف متى السيا سبتال كيان وجود تجي ويشوفنا عيان الحمد لله هذه الفعين هو حلنا دعوة داودرنا أو هو دور ملاي فيرلك سوغارين سيدا كلاو ميرك واقبين أو رغاتير أي لجوتي أو كهولجيسو مارتي داوينيسي أو شقاد ودي xoogagga Taliban ayaa sheegay inay la wareegeen dooxada Banjir. Mustaqbalka dooxada Banjir ayaa weli ah mid cakiran oo weli waxaa socda dagaal culus oo u dhaxeeya Taliban iyo kooxda difaacaysa dooxada. Ila waraadyo Taliban ah ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in ay qabsadeen aagga, laakiin kooxda Banjir ayaa arrintaasi beenisay. Dhanka kale, Cali Nazari oo ah afayeenka dagaalamayaasha jabhadda iska caabinta qaranka waxa uu sheegay inay fallaagadu dib u riixeen Taliban. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Amrullah Salah oo dhawaan ku biiray kooxda NRF ee ka soo horjeeda Taliban ee Banjir ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in uu baxsaday. hase yeeshee wuxuu qiray in xaaladdu ay aad u adag tahay. boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaalka ka socda Banjir. Dagaalyahanada wax iska caabintu ay ku jiraan ciidamo hore uga tirsanaan jiray militariga Afghanistan iyo maleeshiyaad maxalli ah ayaa waxaa hogaaminaya hogaamiyaha qabiilka halkaasi degan Axmed Mascuud. Aabihii ayaa guula ka soo hooyay dagaalkii midowga Soofiyeed kaas oo dalkaas soo galay 1980 iyo weliba ururka Taliban oo uu la dagaalamayay 1990. waxay ku taalaa waqooyiga caasimadda Kaabul. dooxadani waa mid ka mid ah goobaha ugu yar Afghanistan oo hadda ah gobolka kaliya ee aan weli gacanta u gelin Taliban. goobahaasi oo caadiyan lagu yaqaan in lagu mucaarado Taliban ayaa waxa ay hoy u tahay inta u dhaxaysa 150,000 ilaa 200,000 oo qof waxaana ku hareeraysan buuro.